waxaa waxaa maanta ka aragnay shaashadaha waxaan ka aragnay TV-ga mataqaana Ethiopia-anka ama warbaahinta Ethiopia oo laga soo daayay wax salaamaha Habar Fartuun Axmed Diini laga soo daayay Cabdi Ilayo lagala baxay gurigii mataqaana gurigii oo ka deganaa sababa oo la bahdilayo oo macnaha xitaa in la xiro caadi loo xiro waa la diiday si ay oromadu u bahdilaan ayaa waxa lagu sameeyay bahdilaadii ugu xumayd oo TV-ga xitaa laga baahinaya marka waxa dhici karta in dad Soomaaliya mataqaana ay arintaas wax caadi u arkaan oo ay ku farxaan ay dhici karto waana ani marka sababta aan hadda la soo gal live-ku ana maalmahan hawlo kale ku mashquulsanaay safarada ay jiray aan mataqaana aan arinta ina ka hadla aan ugu aasaday waxa weey horta Cabdi Ilayo dambi ma galay mise ma gelin laga ma hadlayo Cabdi Ilayo la heesto ahaa isaga yaran kala shaqeynayay oo meesha mataqaana dhibaato ka geysteen taasi waa arin la og yahay laakiin tan meesha taalo waxa weeye hello في أنا وكما إيه أنا مشغول سنة ما يسوق اللايف أنا كجراي هاي مركب واحد لك هذا وحاوي عبد إلهي يا محكمة ذين كنا عبد إلهي الدين بالله وحاله محكمة ذين كنا جيجا لكن أورمada inay yiraahdaan mataqaana shidaalku wanaga hor taagnaayo mataqaana Oromo mataqaana ay halala dagaalayo godob Oromo in lagu xiro waxa weeye Soomaaliya ay ku tahay in Cabdi Ilayo jigjiga lagu qabtay jigjiga lagu maxkamadeeyo Soomaaliya ay ku tahay hadii Cabdi Ilayo dambi leeyahay waa in jigjiga la keenayo jigjiga mataqaana lagu maxkamadeeyo asaabiin lagu maxkamadeeyo waa ceeb maxay ceeb ku tahay waxa weeye Ethiopia ninkii ama sardoonka heestaa jooga ra'iisul wasaarihi joogo kuwi marka xilliga mataqaana talada hayay ee taadiida geysanay ee Oromada ahaa ee Amxaarada ahaa ee Tigreega ahaa waxba laga ma qaadi karo lama hadin lama soo xirin way Cabdi Ilayo kaliya ay mataqaana oo raadsanayaan ninkan cusub Oromada ah ana waxa way Cabdi Ilayo Soomaaliya ka dhashay Soomaalida waa dadka noocaan ah mataqaana aan qadiida fiican lahayn marka ani waxaan qabaa qof kastoo wax garto Soomaaliya Cabdi Ilayo xaquuqdiisa u doodo isaga dib u geystay gooni weeye Cabdi Ilayo xaquuqdiisa mataqaana waa in loo doodo waa in jigjiga la keenaa ninka madaxweynaha cusub ee mataqaana Mustafa waxaan leeyahay ninkan hadaad matasho oo adigu maqaarsaar ahayn ninkan u yeer ninkan halagu soo wareejiyay baarlamaanka waxaan leeyahay shir hay yeeshaano hadda hano Cabdi Ilayo jigjiga la keeno idinka xukuum markaas Cabdi Ilayo haduu dambi galay laakiin yeysa Oromo xukumin yeysa Tigreeg xukumin yeysa Amxaara xukumin waxa ogaataan waxa oo lagu sameeyay Cabdi Ilayo hayay ku macani wax magaca Soomaali lagu sameeynaa maxaa yeelay hadii ninka gaangistarka ahaa ee dimbada geystay Oromada aan la hadli karin kii Tigreeg aan la hadli karin kii Amxaarka aan la hadli karin way kan Soomaaliga ah loo hadli karaya Soomaali waa la haystaa asna waa la dhulka Soomaaliyeed waa la haystaa horna waa loo haystay haddana waa la haystaa waxayna muujinaysaa kuwaas dad inay leeyihiin wax kastay geystaan uga raaliya laakiin kan dad oo salahayn marka magaca Soomaalina waa ilaalinayno waxa weeye aniga Cabdi Ilayo ogtiin wax laga dhaxeeyo laakiin Cabdi Ilayo waa in jigjiga lagu maxkamadeeyo hadii la maxkamadeynayo lama qaadan karo Ethiopia أسأبا إيو مال كلام إن متعلق محكمة وكاسا وإن سلامية مقالة دي كوسا لابتي هالكاسا جوهولن وي وكاسا هالكاسا جوهولن وواركا سوما هالكاسا جوهولن وي مقع الصومالية الإلالية عبد إلي حقوق سالات دوضو أسود الدنبي قالي Soomaaliya la xisaabtamayso Soomaaliya maxkamadeynaysa Soomaaliya mataqaana daba joogto ma fahamtay laakiin aniga ina kamera la qaato nin Soomaaliya oo magac Soomaaliya wato isku abtirsiinahay ay Oromo meelaha ku sawirto oo la bahdilo oo hore gada loo wado waxa weeye caayan u arkaa waxaan u arkaa bahdila Soomaaliya la bahdilayo
haddousan ninka tagareegaa soo qaban karin kii sirdoonka haystay kii ciidanka haystay yaa ciidanka cabdi ilay soo nin ma xukumin cabdi ilay soo dad ma xukumin soo dalka rasuul wasaare kama jirin aawen kuwaas maxaa loo xisaabtami waaye marka xisaabtan ha yimaado anigu saasaan qabaa qof kasta Soomaaliya waxaan leeyahay xuquuqda cabdi ilay maanta waa shacab waa inaa u doodaan wabillahi tawfiiq